Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada kooraskani farsamada baabuurta waa cutubkii afaraad casharkiisa koowaad casharkooda waxaan uga hadli doonaa bareega waxaan idiin soo jeedinayaa aniga oo maxamed xaris faarax wixii jawaab celin waxaa noogu soo celin kartaan emailka shaashadayna ka muuqda kooraskan waxaa kala socoteen Somalism Online Academy xaggaas ayaa kala socoteen bareegu waa hab istaajiya ama joojiya gaari walba inta lug uu leeyahay ayaa bareegiisuna yahay oo lug walba bareeg iyada qabta ama joojiya ayay leedahay sidoo kale bareegu waa meesha soo saarta awoodda lagu yareynayo ama lagu ilaalinayo socodka baabuurka waa kan bareegii muuqaalka bareega halkan waa badeel bareegii badeelka markii la riixo halkaa waxaa ku jira waran baa ku jira warankaas wuxuu riixayaa saliidii buu riixayaa marka halkaas waxaa kasoo baxaysa hal fiilo taqriiban yani hadda kan oo kale muuqaalkan laba fiila kasoo baxay labada fiilo saliidii bareega waxa keenay shantaraalka marka lagu kala qaybinaya lugaha marka uu kala qaybiyo lugtan hadda lugtan hal baade lugtan kalena hal baade tusaale ahaan wuxuu sameyn karaa in saliidu marka shantaraalka soo gaarto hal tuubo ay aado taayirada hore oo ay xagga ku kala qaybsanto gadaal ku sii kala qaybsanto iyo in hal tuubo aado taayirada dambe sida xaggan ka muuqato kale laakiin inta badan waxa u baahan tahay shantaraalka in sida hadda meesha ka muuqato kale laba tuubo ay ka kala tagaan taayirada hore laba aado xabadna ay aado taayirada dambe oo ay xaggaas taayirada dambe ku kala qaybsanto sida qaabka ay u qabato bareegu taayirada sida xaggan nooga muuqata midkan si qaab qaniye camal oo kale buu ku qabanaysaa meesha wareegayso taayir ku xiran yahay dhab ugu siinaysaa tanna qaab cadaadis oo kale ah yani way kala cadaadinaysaa saas oo kale qaybna xagga u cadaadinaysaa qayb kalena xagga u cadaadinaysaa waxaana keenaya warankaasa keenaya cadaadiska inay saa u kala cadaadiso markii laga fuqana kan sprinkaas baa soo celinay meesha ku soo celinay oo fasaxaya taayirada aan ku dhageyn hadda waa kan markii bareega la qabto markan badeelka la qabtay saliidii wuu soo riixay warankii baa saliidii soo riixay waranka markuu saliidii soo riixay kaas waranka xaggiisa ku xiran waxaa la dhahaa kit baa la dhahaa waranka markuu soo riixay saliidii qaab qaniye camal oo kale ah xagga waxaa ku jira bastomo gaarayaasha qaar waxay leeyihiin hal baston qaar ka badan bay leeyihiin 4 baston oo kale qaar leeyihiin marka qaab qaniye camal oo kale buu u qabanaya waa kan bareegi waa kan halkan hal baston buu gaarigan leeyahay waa kan markii saliidii ay soo riixdo la soo riixo xaggan way siyaasa saliidii marka soo gasho way siyaasa taas waxay keenaysaa in bastonka hore inta u durko oo xagga soo cadeeyo kan waxaa la yiraahdaa cadad baa la dhahaa cadadkii bareega waxay ka qayb qaadanayaan qabashada bareega xaggan cadka iyo bahalkan isku soo dhawaanshooda baa keenaya in xoog u qabtaan meesha waa kan hadda waa kan xaggan waa cadkii hadda ka ku sheegay bastonka xagga uga jira kanna waa lugtii meeshii ku xidhmanaya taayir sida ka muuqata xagga qaybaha uu bareegu ka kooban yahay bareegu wuxuu ka kooban yahay badeel haanta bareega box bareeg kit waxaa la yiraahdaa saliid qasabado ama tuubooyin shantaraalo bostojiinooyin marka bostojiinooyinkaas taayirka qabanaya ayaa waxay ka kooban yihiin faroodooyin iyo qam ama qab iyo cadadka bareeg waxaasoo dhan bay ka kooban yihiin iyo bastomo ay ka kooban yihiin saliid bareegu waxay tagtaa box bareega waxaana ka qaada qasabadaha bareega qasabaduhu waxay sii marsiiyaan shantaraalo saliidda marka ay soo gasho shantaraalka waxaa sida hal qasabad waxaana ka baxaya laba qasabadood baa ka baxaya waxayna kala aadayaan qamaha iyo bostijiinada qamta marka ay saliiddu soo gasho waxa dhaqaaqaya bostonka qamta waxa uuna cadaadinaya cadadka bareega markuu yani bostonka ay soo gasho saliidii oo saliidda bostonka soo cadaadiso asna wuxuu cadaadinayaa cadadkii bareega u cadaadinaya si u qabtaan lugta qamaha qaar waxay leeyihiin
4 baston, qaarna waxay leeyihiin 1 baston. Bastajiinada marka ay saliidu soo gasho waxa dhaqaaq sameynaya kitka, wuxuuna cadaadinaya kaaweeska. Haddii ay siyaado ama daadiso lug ka mid ah lugaha ama ay dhammaato saliidu, wax bareeg ah kuma qabanayo ama si fiican kuma qabanayo. Lug kasta waxay leedahay niiba laga eersaaro. Saliid bareeg waxa laga yaabaa nidaamka saliidda in hawo kala dhex gasho, markaas kale lugtii bareeg si fiican kuma qabanayo. Marka waxay leedahay niibal meel yar oo laga eersaaro eerka, hadduu eer ku jiro kale laga eersaaray leedahay. Gunaanad, bareegu waa nidaam istaajiya baabuurka, maamulana socodka baabuurka. Bareegu haddii aad qabato qayb yani bareega haddii uu qabto qayb ka mid ah taayirada baabuurka, waxa uu sababi karaa dhibaato in gaarigu gadoomo ah. Yani tusaale ahaan hadduu bareegu qabto labada taayiro hore, gaarigiyo xoog ku soconaya, waxay keenaysaa gaariga inuu afka dhigto bay keenaysaa, laano labadii taayiro dambe soconaya baa soo galaya. Marka taasoo kale waxay keeni kartaa dhibaato. Nidaamka bareegu waxa uu ka bilowdaa badeelka ilaa uu gaaro cadadka taayirada qabta, ilaa uu xagga ka gaaro. Nidaamku intaas ku saleysan yahay bareega. Dhammaad casharkeennii intaasuu noogu egyahay. Aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.